madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalmahanba safar ku marayay gobolada bariga Somaliland ayaa safarkiisaasi waxa uu ku yimid degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag ee ay ka mid yihiin Fadhigaab, Gar-adag iyo Ceelaf Weyn. wafdiga madaxweynaha Somaliland waxa gobolka si weyn ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Stabar, mas'uuliyiin iyo waxgaradka bulshada deegaanadaasi kuwaasoo si mug iyo miisaan leh wafdiga madaxweynaha ugu soo dhaweeyay gobolka. shacabweynaha heer Ceelaf Weyn waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow degmadii Ceelaf Weyn oo aan ku kala hadhin shacab iyo maamul waayeel iyo waxgarad dhalinyaro iyo cuqaalba adiga iyo waftidaadaba soo dhawow waan ku leenahay madaxweyne. mudane madaxweyne degmadii Ceelaf Weyn maanta iyadoo aan kala had lahayn ayaa halkan taagan tahay. mudane madaxweyne aad iyo aad baanu ku soo dhaweynaynaa, gacmo furan baanu kugu soo dhaweynaynaa. waa degmadaadii Ceelaf Weyn ku soo dhawow. shuushka ilaahay wuu naga qaaday oo nabadgelyo aanu maanta meeshan ku joognaa kuguna soo dhaweynaynaa. mudane madaxweyne inta anagu waad aragtay dadku horena kulmiyo ahaa maantana waa kulmiye aan codka waa ku siinaynaa. 12kii waxa la tubnaa inta ka sokaysa Galciile iyo Ceelaf Weyn marka codka horena waa ku siinay hadeer waa siinayna. mudane madaxweyne Ceelaf Weyn waa magaaladan ku dhashay, gurigiiba ay muuqdaan ku dhashay, 3 sano hadeer gobolka hogaaminayeen. waxa laga filan doono iyaga ku sheegaya maxaynu ka filan doonaa hadii alla idmo insha Allah mar kale laga filan doonaa iyo madaxweynaha qaranka inay kor u qaadaan wafdida iyo madaxda kula socoto waa soo dhaweynaynaa. waayeelka faraha badan ee horseedka ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo waana idin salaamayaa aad iyo aadna waan idinku mahadnaqayaa. qurux lama bidayo maalin walba in qaylo soo yeedho, maalin walba naxdin iyo huq taagan cid walba dhibaatay ku tahay. maalin in waxaas dhamaadaan aad iyo aad bay mar walba lano saraar qorlugud ilaa iyo Gar-adagtan halkan dareenaan igu jirin inta ayaan imakay galay markaan halkan soo galay. waxaanan leeyahay dhalinyarada iyo inta caafimaadka qabta ilaahay hortii ilaahay baa caloolihiina oge way idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha la qaaliga aad nasiiseen. dhaweynaynaa degmada Ceelaf Weyn oo maanta mida waxaanu kugu soo dhaweynaynaa iyagoo nabadgelyadii u midoobay oo maanta qaatay. maanta arkay maanta ma joogo Ceelaf Weyn faaruqay maanta yahay. maanta alxamdulillah Ceelaf Weyn la isku duuban yahay oo sidaa loo soo wada dhaweysay waxa weeyaan waa horumar. Ceelaf Weyn taariikh ballaaran bay leeyihiin. ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay socdaalkiisa gobolada bari uuna ku marayo gobolka Sanaag ayaa bulshada deegaanadaasi ku soo dhaweysay uga mahadnaqay. nabada maanta haddii aad farxad u soo dhaweyseen oo intiinii badnayd waayeel iyo dhalinyaro cirrooliyo caruur rag iyo dumar ah u dhammaydeen oo isdhex joogtaan waxay sharaf noo noqonaysaa oo no abaal idinku haynaynaa oo Somaliland idinku ducaynaysaa qaranka oo dhan idinku oo saa maanta soo dhex gasheen sii kordhiyo oo aan wax ka dhibin aad iyo aad baanu tahay ka codsanaynaa. ilaahay gacantiisa ku jirtaa, ilaahay baynu ka baryeen. dhalinyaradow aniga iyo waftigayga haddaad soo qaabila oo kalgacayl noo haysaan oo na sharfayseen noo raaciya inaad saa isu dhex socotaan. Sayid Qurbaawi, Telefishinka Universal, Ceergaabo.